السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada asxaabta kuna soo dhawaada cashar cusub. maanta waxaynu dul istaagi doonaa amba soo qaadan doonaa wax aad isweydiisay wuxuu yahay taas oo lagu soo kordhiyay Facebook. 48 saac ee u dambeeyay waxaad Facebook ku arkaysay markaad joogtid xagga historyga hoostiisa Create Room. maanta waxaynu dul istaagi doonaa amba wax ka sheegi doonaa Create Room wuxuu yahay iyo wuxuu taraayo. ka hor intaynan casharka bilaabin saaxiibada cilmideena xasuusiyay kanaalka waxaan ka bedelay magaciisii hore oo ahaa aqoonyahan channel kaas oo aan u bedelay Tusi Technology. waa sida ku muuqatay kanaalka magaciisu wuxuu ahaan doonaa Tusi Technology. aynu bilownay 48 saac ee u dambeeyay Facebook waxaynu ku arkaynay barnaamij ayaan hore ugu arag kaasoo ahaa Create Room. iminka markaan Facebook-gayga soo furto wuxuu igu oranayaa sida tan halkan dadku waxbay ku qorqoranayeen kadibna waxaas wuxuu dhigmasaa productsiga WhatsApp oo kale. haddii aanad fahansanayn waxaa jirta marka Facebook live la soo galayo dhowr qof oo kaliya ayaa la soo qaban jiray wada sheekaysan jiray oo kale. iminka matalan barnaamijkan wuxuu yahay waa sida application-ka loo yaqaan Zoom oo kale. sidaas oo kale ayaa dad badan u soo wada gali karaan live. iminka marka halka taabatid samee baa taabanaysaa kadibna marka intan baa ku soo baxaysa. ugu horreyn waxaad sii taabanaysaa room activity. room activity marka taabatid wuxuu ku soo saarayaa intan wajiyadan buu ku soo saaraya. wajiyadan waa wajiyo samaysan oo ah igu soo biir soo sanaan wax noocaas oo kale. laakiin se waxaad samayn kartaa adigu magac baad u samaysan kartaa taatid ma fahansana magac ayaa u samaysan kartaa oo dadkii saaxiibadaha waad salaami kartaa. sidoo kale qoraal baad u qori kartaa adoo af Soomaaliya wax la waxaad jeceshay kadibna emoji baad saaraysaa oo si uu qofku u arko waxaan inuu yahay wax laga soo shaqeeyo oo kale matalan laga yaabaa haddana waxaad sii taabanaysaa dadka ku infinite crazy specific people ba mise waa saaxiibada oo dhan. saaxiibada waan taabtalkan waxaad bilaaw taabanaysaa time-ka uu bilaamayo. waxaan filayaa inuu waqti yar yahay ilaa saacad sii joogayo intuu halkan bahalku muuqanayo amba uu samaysnaanayo room-kan aad samaysay. waxa loo sameeyay bahalkan barnaamijkan waa messenger-ka. halkan waxaad ku infinite gareenaysaa saaxiibada rabtid inuu u dirmo amba linkigoodii aad infinite gareenaysaa kadibna halkaas baad sii taabanaysaa. halkan waxaad ka qaadanaysaa linkiga uu kugu siinayaa. linkiga marka ka qaadatid waxaad u diraysaa saaxiibada rabtid inay kala soo qayb galaan live-ka marka soo gashay. live ayaad soo gelaysaa kadibna si Zoom oo kale ayaad u sheekaysanaysaa. waa video call oo kale matalan oo ilaa 30 qof oo kale ay ku wada sheekaysan karaan. kadib iminka anigu markaan bilaabo join markaan idhaahdo saaxiibada u soo diray wuxuu noqonaysaa sidii inaan ahay qof kale oo kale video call. kadib marka soo galo saaxiibaday marka linku gaaro ay sii gujiyaan waxay noqonaysaa inay kala soo qayb galaan oo aad si live oo kale wada sheegaysataan si application-ka loo yaqaan Bigo live oo kale sidoo kale weeyaan. intaas baa lagu soo kordhiyay waxaasaan ku sheekeen waxa laga yaabaa inaad wax badan ka fahansanin laakiin se imika waad fahmi doontaa waanad ka fahansantay wuxuu yahay. kadib mar raba inaan bilaabo waan ka jarayaa. waxaad kala samayn kartaa waa la wadaagi kartaa linkiga saaxiibada oo aad u share gareyn kartaa amba waad ku share gareyn kartaa application-kaaga. waan ka baxay imika waxaan soo tagi doonaa meel kale wuxuu soo muuqan doonaa sida tan assalaamu calaykum saaxiibaan soo qoray kadibna waka saaxiibaday saas u soo baxaya. waa sida uu saaxiibaday u soo bixi lahaa. dadka kale waa kuwan waa ku biir beenta damas ku qoos qoran iyo maxaa ahayd tolay join me adu waxyaabo noocaas iyo say hi. marka application saas u shaqeeyaa ee la soco kana faa'iideyso.